maalin wanaagsan dadka habeen wanaagsan dadka aroor wanaagsan maanta oo ay bishu tahay 14 bishii November oo runtii ayaan waxaan jeclaystay bal inaan ka warramo taariikhii adduunka soo maray oo sideedaba taariikhuhu waa waxyaabaha runtii u ah dadka waxay markaa ay ka faa'iideystaan oo qoomkii iyaga ka horeeyay dhibaatooyinkii ay soo galeen ama qaladaadkay galeen inay ka faa'iideystaan hadba qolada ka dambaysa oo ama faa'iideen qolada hore inay ka faa'iideystaan hadba oo ay tahay inay ka faa'iideystaan oo ay markaa cimro ku qaataan qoladan dambe qolada hore oo quraankeena laftigeena qisas ka warramo badana oo sheego oo مثلا qofka waxa Fircoon oo kale oo aad quraanka uga hadlo oo Ilaahay uga digay dadka inaanay ku talaabsan oo aanay magaranayay aanay kibrin sidii Fircoon u kibray oo kale oo ay Ilaahay ka baqaan oo deew gaadhay heer Ilaahay waxaan ahaybade milkii Ilaahay ku qabsado oo taana ciqaabteedii uu helay oo faa'iidadeedii uu helay oo looga digay dadka dambe inaanay arrinkaas oo kale ama aanay sameyn ama aanay ku dhicin ayna tahay faa'iido loogu faa'iidinayo dadkan kale oo insaanku sidiisaba inamal insana la yadqa araa istaqna billahi oo dadku way qooqaano qofka dul lacag yeesho ama aqoon xooga yeesho ama xooga awood ciidameed uu yeesho wuxuu isku dayaa inuu maartay ku kibro marka taa looga digay dadkana waa taa inaanay ku kibrin oo runtii ilaaliyaan waxyaabaha runtii loo baahan yahay marka inay ka faa'iideystaan dadka taariikhaha waa saas weeyaan taariikhdu sideedaba waa aqoon qofka maskaxdiisa dhista una faa'iideysa bal wixii adduunka soo maray iyo isbedelka oo ku yimi iyo aqoontii ay ka dhaxleen dadkii hore haday noqoto science haday noqoto caafimaad haday noqoto xisaab haday noqoto oo dadkan damana ay iyaguna u heleen qalabkii ama farsamooyin fara badan oo ka duwan oo qalabaadkii ay haystaan ay ka faa'iideysteen oo ay maanta hawada mashaaxayaan oo duulayaan dadkii hore aanay duuli jirin badda iyo bariguna ay mari jireen oo taasuna ay faa'iido soo kordha ay tahay waxaan maanta jeclaystay maadaama aan nahay dad Europe ku nool oo aan jeclaystay inaan barka warramo taariikhii Europe soo maray oo Europeanku sideedaba afar qabiil oo ragga cadaanka ah sheegaya qabayladaas waxay yihiin Aryans ama Aryan oo ay ka bilaabmaan Jarmalka Netherland Scandinavianku waa Denmark Norway Sweden Scandinavianka la dhahaa Iceland Switzerland qayb kamid ah Belgium qayb kamid ah iyo nimankan English kala baxay English iyagana waa Aryans oo iyo Slavishku waa Russia Bulgaria Czechoslovakia Slovenia Hungary Bulgaria dhammaan wadamadii shuuciga ahaa marka laga reebo Romania inta kale oo dham Slavish baa la dhahaa Romania waa Latini Greek Latini Talyaaniga Latini
Isbaanishka, Portugiiska, Faransiiska intaana Latini baa la dhahaa. Marka Aryanisku waxay hogaamiyaan United States of America, Canada, Australia, New Zealand, dadka adduunka maanta dee ugu awooda badan leh xagga aqoonta iyo ciidamada. Waa nimanka Aryaniska la dhaho oo Slavishka ku xigo Russia ayaa isaguna halkaas soo gala. Iyo nimanka la Celtic ama Celtic oo ay ka mid yihiin ninka la dhaho matalan ninkan la dhaho Welshka, Scottishka, Irishka. kuwaasna iyaguna waxa weeyaan waa niman iyaguna waxay ka soo jeedaan Celtic iyagana la dhahaa. waa nimankii iyagana halkan loogu yimaamo laga qaaday nimankan Aryaniska Englishka la baxay ka qaadeen meeshan. waqtigii Empire-ka Romanka waxay ka baxeen baa qaybtan England 414kii. dadna saddex qabiil baa yimi meesha soo degay oo ka yimi xaggan Ireland, Netherland iyo Jarmalka iyo Denmark. barigaana Netherland iyo Jarmalka iyo Denmark ma jirin, laakiin dee qowmiyadahaas unbaa degnaa halka ay ka yimaadeen. marka Angle iyo Saxons iyo Juli ayaa saddexdaba loo oran jiray halkaas ka yimaadeen, halkan ay soo galeen. dabeetana waxay la baxeen 7 qabiil, 7 boqortooyo samaysteen oo 7 boqortooyo la kala jiray Northumbria, Mercia, East Anglia, Wessex, Kent. marka waqtiga marka boqortooyada 7 boqortooyo qoladii loo jiray Sussex waxay nin loo jiray Ali ayaa noqday boqor 417 ilaa 514 baystay. Wessex ka qabsaday. Essex Iswan nin loo jiray qabsaday 517 ilaa 508 marka iyagana haddana Wessex ka qabsaday. East Anglia Kufa nin loo jiray qabsaday 513 ilaa 518 wuxuu dhibinkiisa Tillel isaguna qabsaday 570 ilaa 616 wuxuu dhibinkiisa Ledwell oo qabsaday 616 ilaa 642 iyagana waxa qabsaday Mercia qabsadoo la wareegay. Kent boqortooyadii loo jiray iyaguna waxay ninkii ugu horeeyay loo jiray Oscar oo wuxuu qabsaday 480 ilaa 512. Octa oo inankiisa waxba qabsan way isla gaboobeen. Ermenic Octa inankiisa oo Ermeni loo jiray qabsaday 585. dadna wuxuu guursaday gabadh Kristan buu noqday. ninkii ugu horeeyay Kristan noqday buu ahaa Edward Edward nin loo jiray budbutana oo dhalay ayaa la wareegay oo isaguna de Kristana 500 baa la dhahaa 950 ilaa 616 baa haystay kaas in badan baa haystay. kabacdi iyagana Kent waxaa la wareegay Wessex ka qabsaday. halkaas boqortooyadu ku baabaaday. marka waxa isku soo hadhan Wessex iyo Mercia iyo Northumbria. marka Northumbria ninkii ugu horeeyay haystay Adrian loo jiray 547 ilaa 595 baa haystay. laakiin boqortooyo kale ka ag dhisnayd Mercia loo jiray dagaal ka socdeen dhexdooda. marka Ettrick wuxuu haystay 500 iyo 60 ilaa 565 baa haystay. halkan kala haystay Ettrick oo isaguna boqortooyada kala ahaa idea ahaa Ettrick oo 572 ilaa 539 dagaalana inta dhexdooda ka socday labada boqortooyo haystay. Erfid oo dootana isaguna markaa haystay waxa ka dhacay dagaal sukeeye ka dhacay
640 بقبصة 660 كلاستي خراب يدقال أي كدح دحي لبدو دي بقرتو إسلايين أنفرد أي قبصدي 660 إلى 640 حقو دوتا حلو وريقي أسود oo guursaday boqortooyadii Kent inantoodii ay dhaleen Kristanka qora Oswald ninkii hore Kristan noqdo buu ahaa oo 640 ilaa 642 haystay Oswald haystay 6 oo dhalay 642 ilaa 655 ayuu haystay dootana waxa qabsaday ninkii loo jiray Alfred oo haystay 675 war hal boqortooy markaa noqdeen qoldeenna